waxa kaloon in yar idinka warramayaa qiso dhex martay laba ruux mid waa mid caasiya waa cidka aad iga cajaa'ibisay mid waa nin caasiya qur'aankana aad u yaqaan iyo gabadh cafiifada oo iyana qur'aanka aad u taqaan waxaad arkaysaa aayadda qur'aanka ee ilaahay odhanaya yudilu bihi man yashaau wayahdi bihi man yashaa ninkanuu aayado qur'aanuu ku haasaawaya gabadha kula haasaawaya iyana aayado qur'aanay ku difaacaysaa markii ugu horraysay waa nin faqiira ninkani gabadhan ayaa soo agmartay gabadhana waa gabadh aad iyo aad ilaahay u qurxiyey markaasuu ninkii la yaabay ilaahay gabadhan quruxduu siiyey markaasuu aayad qur'aana soo qaato oo wuxuu yidhi wazayannaaha linnaadiriin buu aqriyey waxaanu u qurxinay dadka daawanaya faqaalat markaase waxay ku tidhi waxafidnaaha min kulli shayطaanin rajiim shayطaan kastoo rajiima ilaahay waa ka ilaaliyey markaasuu yidhi bal hiya fitnat walaakina akarahum laa yaclamuun de imtixaan baa tahay dadka qaarkood ma garanayaane fitna adduunka lagu keenay markaasay ku tidhi waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa haddaad fitno ii dareemayso dee iska badbaadiyo iska ilaali markaasaa wuxuu haddana yidhi nuriidu an na'kula minha wataطma'ina quluubuna waxaan rabnaa inaan wax yar ka dhadhamino si niyaddayadan kacday aa u yaro xasisho markaasaa waxay ku tidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun meherkeen dee adduun baa lagaa rabaa imeherso oo adduun lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun markaasaa wuxuu yidhi wain kaana duu cusra haddaan waxbaba haynin maxaa la yeelaya wain kaana duu cusra markaasaa waxay ku tidhi xataa yugniyahum allah inta ilaahay hani yeelay ha iska sugaan markaasuu haddana uu yidhi wاladiina laa yajiduuna maa yunfiquun haddaanu haynba wuxuu bixiyana qaalat ulaa'ika canha mubcaduun hadduu faramaran yahay tan oo kale ilaahay waa ka fogey faxmara wajhuhu qadiiba waqaala alaa lacnat اllahi calىa nisaaءi اlardi ajmaciin ilaahay lacnadiisu dumarka dunidao dhan ha ku dhacdo faajaabatu lidakari midlu xadi اlunhayayn ayay iyana ugu jawaabtay marka waa laba ruux way sheekaysanayaan waaxid wuxuu ku aasaawayaa qur-aankii midna qur-aankii bay isku difaacayeen labadaasba dee way halkay kala joogaan waa dareemaysaa marka qisaska horta ku saabsan dadkan saalixiinta ah ee ilaahay ka dhowray macaasida aad bay u badan tahay oo haddaynu caawo o dhan ka sheekeeya isnidhaahno ee ka dhammaan mayno waxayse aan intaa u soo qaatay dadkii aan nebiyaalka ahayni siday macaasida uga dhowrsan jireen iyo marka ilaahay uu ka ilaaliyey ifkaba sida ilaahay ugu gargaaray tabaaraka wa tacaala ay ugu liibaaneen iyagoo nebiyaal ahayn maantana wakhtigan lagu jiro waa wakhti alfitna weliba zamankiinani dadka ku soo beegmee dhallinyaradii waa dad aad iyo aad u nasiib daran aad iyo aad u ayaan daran ilaa man raximahu اllah nin ilaahay u naxariistay mooyaane nin kalena ka badbaadi kari maayo oo waxay ka dhigan tahay ruux intaad biyo ku riday badweyn aad tidhiyay barbiyihii ku taabanin macquul meet badweyn buu ku dhex jiraa haddana waxaad maxaanku idhaha ku xujaysay barbiyihii ku taaban waxaan dhici karayn